قرحة ها dumarkana waxaan leeyahay saaxiibad aa soo dhawaysan gurigaaga ha keenin reerkaaga ha dhex keenin ninkaaga ha barin inadeertaa ruma walow inaatidaa ruma may ahaato يا maxaa kula talin laydin bal soo qora intaasoo ilaahay idinka maskax idinka keenaa ka fiicane والله inay maaragtay meesha way ka weynaatay qaris imika way ka weynaatay waa laba reer inankeedii yaraa ayaa bilaa aaba ah yacni sheekadan qaris ma noqonayso waa in la sheego weligeed baa inuu gabar lala bilaabo guursan noqdo iyo in reerkii dumo labadaasay noqonaysaa reerku qasab saaxiibadeed ma aha kama inuu filanayso dumo reerku qasab maaha inuu dumo laakiin in la sheego weeye muhiimaddu ilmo yar ba haddii kale bilaa aaba ku dhacasaaye iyo bilaa mustaqbal wallaahi way adkaatay wallah dhul gabar macduun ma joogtaa anu waxaan dhihi lahaa waa ha qaado Soomaaliya ha geysato halka ha ku biilo haya abay iyadoo dadkaas la tan la isuga abay maryan isu ku soco dhalgood ma joogtaa walaal caawa dhan ma saarnayd haa walaal waan joogaa sheekaba sheekay noo dhiibisaa aad iyo aad soo dhow walaal waan dhawaaya walaal sheekan hayaa sheekadan wuxuu ku bilaabanaysaa hore maan ka bilaabaa mise ku soco walaal macaan soo dhow sheekadan horta waxay ku bilaabanaysaa family baan ahayn hooyo iyo aabo kadib waxaan joognay baadiyaha u dhow muqdisho aabaa dhintay aabo markuu dhintay ayaan waxaan soo degnay muqdisho deetana marka waxaan ahayn 3 gabdhood iyo 1 wiil baan ahayn halkii wiil baa waxaa timaaday iyada waxay tiri maadaama walaalkay dhintay wiilkan anaa korinaya oo wiil ahaan baan u korsanayaa markaa 3 gabdhood iyo hooyaa soo hadhay wax hantiya maana lahayn reer miina waan ahayn deetana gabar kalena waxay ka haystay gabdhihii mid ka mid ah aniga gabar baa soo haray iyo hooyo markaa hooyo waxay tiri waxaad tagtaa meelaha cuntooyinka lagu kariyo iyo maqaaxidaha iyo waxaas tag waxaa kasoo qaadaa cunto dadka maxay isku raaceen gabadha sheekada sheeg qarxi waa qosolka ha qarxin waa oohinta maxaa isku raaceen bal taabta ku soco walaalo hooyo waxay dhihi jirtay meheradaha tag cunto nooga soo toogso aan cunno marka ciyaalkaana ugu weynaa hooyona badanaa way iimay roonayn oo macnihii way garaaci jirtay ha korintii soo toogso haa aabo markuu noolaa xitaa aabo ku xanaaqo anay i garaaci jirtay oo ciyaalka si kale iga baan ka ahaa kadib waxaan ku jiro inaan soo duugsado waxaan weynaaday adu waxaan soo gaaray 12 adu 10 baan soo gaaray 10 markaan soo gaaray ayaan waxaan bilaabay inaan meelaha jaadka lagu gado kabarada jaadka lagu gado kabarada aan hagaajiyo kabarada markaan hagaajiyo dadka u hagaajiya kabaradaba waxay siin jireen wax yar oo lacaga waxaan ku gadan jiray rooti iyo waxaas ilmahana waan u keeni jiray hooyana waan u keeni jiray waxaan sameeyay warasii weynaanaya markaa waxaan sameeyay dharka wiilasha inaan xirto oo wiil camal timaha u jirto oo wiil iska dhigo ma dhowr jeer baa marka wiilal dileen jidka ii galeen dan waxaan ku fakaray inaan wiil iska dhigo oo si ay wiilashaas ii dileen wiil ii maleeyaan wiilina naasi waxba ma yeelano waan yaraa markaa 11 yaan jiraa waxay sheekada sidaa ku socoto hooya marka la soo dilay ee marka dib igu soo dhacdo waxba hooyo u sheegaa laakiin waxba kama bedasho kaliya waxay tiraahdaa waxa uu noor noodoon subax kastana way iirskayga saartaa waaga markuu bari iirskayga saartaa haddaan habeen oo dhan maqanahay haddaan maalin oo dhan maqanaa ma kala jecla laakiin mid iga yar hooyo way ilaashataa oo ma jecla inay meelaha istaagto yacni guriga ku haysaa sidaa waxaa ugu jira habeen baa markaa jidka lay galay wiilal ii galeen waxa haystana way iga qaateen wayna i kufsadeen wiilal badan baa i kufsaday meeshiiba iga tageen waagiiba igu bariyay dad baa meesha igu imaadeen oo aala mise kabaad xidhan tahay ya ma kabaad xidhan tahay mise adiga kugu dhacda maya kabaan xirnaha haa kabay xidhan tahay gabadhu saa ula socda ku soco aniga sheekada waxaa uga sheekeynaya aniga xitaa haweenkaa dhegeysta walaa waan ooyay ma fahamtay waxaa dhacday horta sheekadu mayna ku socotaay yaa baya mayna ku socotaa lagu socotiin kale iska daa isku soco baya maxaa waay
kadib markaa waxaa dhacday meeshii baan waa laiga soo qaaday, dad baa iga soo qaaday. Hooyaan u imaada, waxaan ku yiri hooyo waa lay kufsaday. deetana hooyo waxba kamaysa bedelin. maalmaan guriga aalay, markiina waa lay soo qaaday, maalmaan guriga sii joogay. haddana way isaartay hooyo. markaa waan socon waayey, qof dhib badan soo gaartay baan ahaa. meel dariiqa fadhiistay, waxaa ku yiraahdo walaalahay waa dhibaataysan, hooyadii baa dhibaataysan, waxaa cunno ma haysano, waxaa cunno hala siiyo. kadib waxaa dadaa markaa 1,000 iyo 2,000 dadka dariiqa marayo baa waxay siinayaan Soomaaliya lacag 1,000 iyo 2,000 baa laga isticmaalaa, lacag 1,000 aduu wixii baa wax iskaga hooyo u keeno. waxaan ku dhahay hooyay waxaanan soo helay. markaa waan sii xanuunsaday oo yacni qof ciyaalo badan kufsadeen baan ahay, waan dhibaataysnahay. laakiin hooyo daryeelka maan helin, waaridnimo. haddana subaxii dambe sidii kale waxay ku tiri orda waxaa cunno noo doon. adi dhowr saaca meesha fadhiisanay, kadib waa iska roonaaday. waxaan arkay inaysan markaa xogaa waan maskaxaysta, waan caqlistay, ciyaalnimadu waa ka koray. kadib waxaan dareemay hooyo inaysan asxaanba ii galayn. waxaan ku idhahda hooyo tan iga yar gurigaa ku haysataa, laakiin aniga waad isaartaa, waa lay kufsaday, dhib baan dareemaa, maalin kasta ciyaalaha idmaaga. marka hooyo maxaa ka wadaa? almiina mata yarna igu darta aan weheshada. markaas igu tirinaamay gabadhaydan waan jeclahay, gabadhaydan waan haysanayaa. qisadaas rigala waa qiso dhabo dhacday. waxay tiri gabadhaydan waan haysanayaa, wayna kaa yartahay, markaa adigaa lagu kufsaday, adigaana dhibta ku haystaayo macnihi ba-aye gabadhaydan iskaga kaa darimaya. kadib waxaan sameeyey, markii garaawadan tagay waxaan ka helo saa waxay ku socotay meesha shaleemada. dad waxaan ku bartay kuwaanoo kalaa, wiilal iyo gabdhaba iskugu jira. adoo waxaan sameeyey, wiil baa markaas si gooniya iskaga soo agdhowaanay. wiilkii waan weynaan markaa, aduu waa ismeher xadnay. markaan ismeher xadnay wiilkii waa isguursanay. meeshii shaleemadeedii baan sii daawanayay. kuwo kaloo maafiya jaadka cuna, jaadka inaan bilaabay. markaa jaad baan waxaan bilaabay inaan cuno. kuwa meesha ka shaqeeya, kuwa meesha imaada, waxa jaadka cuni jiray. filmaanta la daawan jiray, filmaantana waan daawan jiray, jaadkana waan cuni jiray. sheekadu waxay sidaa ku socoto. wiilkii uur baan u yeeshay. uur markaan u yeeshay baa waxaan u imaaday mida kuwaan isku qolanahay, oo markaanoo xaamilaa baan u imaaday. uur xogaa 4 bilood leh. markaa waxaan ku iraaday wiilkaasaa uurka ii yeelay. wiilka marka uu iga fogaaday, markuu iga fogaaday wiilka aan ku dhahay uur baa leeyahay, uu sheegayna uur leeyahay, uu iga fogaaday. inuus wuxuu keena meeshan jooga waa usan imaan. hooyaan u imaado. hooyo waxay igu tiraahday na waxa awalba yacni hooyo weji fiican kamaan heli jirin, hadal fiicanna markii kama baan sii helin. waa iskaga tagay. kuwa wax isku dhownahay baan u tagay, oo faamili isku nahay xagga aabbaha. kadib waxaa ku dhahay uur baa leeyahay, wiilkaasaa uurka yeelay. wiilkiina wuu i xumeeyey. wiilka marka reerkoodii baa loo yimaaday. adeerkii baa marka meesha joogay. adeer baa wuxuu u yimaaday wiilka reerkoodii. adeer iyo wiiluu dhalay iyo anigaas soo raacnay. wiilka reerkoodii baan u imaanay. wiilka reerkoodii waxay sameeyeen gabadhaasaa mataqaanaa wiilkiina guursadaa lagu dhahay. arrintii waa loo sheegay. wiilku wuxuu soo qaatay, wuxuu u yeeray wiilal saaxiibadiisa oo kuwa meesha imaan jiray iyo kuwaana garanayn. kolba wiilal badan oo saaxiibadiisa u yeertay, iyo wiilkii baaquli buu soo qaatay, biyuu kusoo shubtay. wuxuu u keenay wiilasha saaxiibadiisa safka la soo maray. mid kasta wuxuu dhahay candhuufaha ku tufa ama caliyo say dadka u garanayaan. asxaabta gabadha ixtiraama. haye qofkaana sheekada ku socon iska bixi karaa ayar. adigu dadkiisa baaquliga wixii ugu tufayeen bo mid kasta wuxuu dhahay. haddana wiilkaa wuxuu yidhaahdaa qof kasta wuxuu lahaa caliyadu lahaa, candhuuftu lahaa, baaquliga kala soo bixi karaa waa mayd. gabadhaana meel shaleemaha bay joogtay. saasoo kale ahayd. anugu markaa haddaa xitaa wax ku shubtay waxay kama garan karo dadkaa kale waxoodii. markaa micnii waxay ka dhigan tahay gabadhaan ilmahaanu kama dhalin. adigu meeshayda iska tegayoo waxaan iskaga laabtay meesha shaleemadii. gabdhihii aas baranay kuwo kamidoo sidoo kale ahaabaan wiilkii meel baan ku dhalay. wiilkii baan iska korsaday. micnii waxaan bilaabay inaan waxado, tuugnimaan bilaabay. heerkii 2000 iyo waa ka tagay, iyo meeshii garaamada mataqaana dadka u googli jiray misaskooda. waxaan bilaabay inaan waxadno.
wiilkaygina waan korsanayaa reer baan u imaaday waxaan ku dhahaa inii shaqeeyo reerkaan dhan waa inii shaqeynayaa 2 casho intaa la jooginba wax kalaan kasii qaataa waa la tagaa wiilkaygu wuu koray dadkaas haba wax u keenaanin haba qof baa ka haysta wiilkaygu noloshaas ku koray nin adag buu noqdayo qaybtiisa maanta haddii lala wareegayo yacni aana waxba ka dhimayn ilmo yaro korriimo fiican aana ku korin ahayn maalinka dambe waxaan u imaaday reero hanti leh lacag leh baan u imaaday oo ilaahay wax siiyey oo dabada qaybtood u badan yihiin guriga markaa wax dhawaa niga shaqeynayaa guriga nooga shaqeey bay dhaheen saan guriga uga shaqeynayay guriga markaan kasii baxayna daaqadan waxaan ka tuurtaa waxay dhar leeyihiin ilmaha dharkooda waxba ma dhaafo raashin ma dhaafo dhar ma dhaafo kaba ma dhaafo waxaa markaas sii arkaba daaqadan ka tuurtaa xilliga aan baxayo daaqadan ka labta waxaygaan iska sii qaataa waxay sidaa ku socoto maalin dambe waxaan gala guriga jiifka ayaan jaanis ku helay waxaan helay maal yar oo ay ka buuxaan dahab iyo lacag doolar dahabkan u badnaa dahabkii waxaan iska qaatay lacagtii gurigiiba hooyaday baan kusoo laabtay lacagtii markaan soo qaatay guriga hooyaday baan kusoo laabtay wiilkaygina waan soo kaxaystay laakiin waxaan ahay muqaylad weyn baan hayo waxaas aan soo qaatay maalin imay celinayaan waxay sheekada saa ku socoto hooyana aan u imaaday wiilkaygii iyo waxaa israacay gabadh walaasheed waa la guursaday nin odayoo hanti leh baa soo doonay gabadh walaasheed markaa ayadu waxay dhashay wiil ay wiilkayga wax yar weyn laakiin wiilkeeduna ku dhow yahay laakiin wiilkeedu waa ilmo nolol habiyo lagu koriyey laakiin kaygu waa jiri sida wax loo dhaca iyo waan baray wuxuu way yaqaanaa maalin kasta qolaa kaxaysataa wiilal iyo gabdhawa qofkii sii kaxaysanaya gacanta u qabsado waxaa dhacday wiilkaygii iyo gabadheeda walaashay wiilkeed waa israacay waxaa la tagay wiil baa waxa lagu qabsaday lacag watay wiilkii lacagta watay markii lagu qabsaday wiilkayga aan dhalay marka toorey baa xirnay tooreydii wiilka gelgeliyey wiilkii aan dhalay marka jirinimada anaa barayo nin wuxuu ahaa meesha uu ka cararay waxaa la qabtay wiilkii kale wiilkii walaashay dhashay baa la qabtay marka waan garanayay kaygu inuu fikanayo walaashay wiilkeed baa lasoo qabtay walaashay wiilkeeda meesha la keenay waxaa lagu dhahay wuxuu yidhaahday wiilkii kale la socda wiil kalea mindida geliyey anigu mindida maan gelin waxba maan ogeyn adigu wiilkii kale dhaawac daran baa soo gaaray dhakhtar baa la dhigay wiilkii waxaan ku yiraahday wuu geeriyooda walaashay wiilkeedii waxaa la dhahay tiirkaa la istaajiyo kaygii baan weydiiyey hooyayaa waxaa dilay wuxuu dhahay hooy wiilkaasaa anaa dilay laakiin dee wiilkaasaa loo xiran aniguna cuqdad horaa igu jirtay oo ahayd ina walaashay hooye iga jecleyd markaa yaraa oo markii lay kufsanayay iyo markaan dhibta maraya intaba hooye ay iyad gooni u ilaalin jirtay anigase wax kasta lay ogolaa in dhib kasta igu dhacaan cuqdadii igu jirtay marka walaashay ilmaheedii bay ku dhacda wiilkeedii walaashiisii baa tiirka loogu istaajiyey wuuna yaraa laakiin waa lagu dilo wiilkaygii baa markaa wuu weynaaday markuu weynaaday wuxuu soo istaagay anigu waxaan rabaa aabihii bay bisheleen aabihii isku dhianeed bay noqdeen aabihii maraykanku aaday wiilkiisna wuu ka haysta anigaa meesha kusoo haray anigu marka sheekadu way soo dhaaftay inaan waxado waan weynaaday xogaa qof waxaa noqday adigu soddoniyada kusii dhow baa noqday waxaan sameeyey waxaan aaday maalin marka meeshan joogo waa muqdisho waan ka tegay waxaan aaday meel yidhaahdo afgooye markaan tagay waxaan u tagay islaan waayeela islaantii baan iskala sheekaystay weligay dugsi layma geen islaantii oo casar tukanaysaa waxay tiraahday ma tukanaysaa waa la istaaga waxay samaysaan la sameeyey sheekadu islaantii markaa waxay tiraahday iskala kay joog habeen bay noqotay waa la joogay islaantii waaba isfahanay islaantii saan darisku nin daris la ahaa oo xoolo dhaqato ahaa baa wuxuu iga helay oday ahaa wuxuu yidhaahda waxaan rabaa gabadhan iyo amuu ninka noo imaan jiray habartuu caana u keeni jiray saan sheekada saa ugu socotay habartii odagii iyo mataqaanaa ula joogay iyo habartii aan ula sheekaysanayay odaygu wuxuu yidhaahda waan isguursanay odaygu wuxuu arkay inaan waxba qur-aan iyo waxba aqoon qof aan ehludiin ahayn
oo aan salaada waxba ka garanayn dugsiba wuxuu igu yiraahday dhigo waxaan ku barayaa diintaan ku barayaa qur-aankaan ku barayaa marka odaygas xoolo dhaqato ah xoolaha intuu gatay lacag badan oo xooluhu leeyihiin baa guriga la keena xoolaha lacagtooda markii guriga la keenay ayaa waxaan ku fakaray inaan la qof tuuga u baratay baahay lacagta